يونس عند الآن أم بالحاجة كان أرجع كلام غير ما كل رتم سوى مد جدال كجيم والله محمد وكمان دارلين لكن وقت يعني شري سجال بلاد يا حد عي وان حنو صلي حنون إسكعادية كدبنا وحليجي دكتور كم دخاتير تمجال هرجيسة وأنا هذا دوني الشيء مجيسة كدبنا دكتور كي وحولي كان عايسة هو يوم مركز رئيس قاف دافن حكوا تري كان عادة هرجيسة ولا ما دافن حاجة كونت إياه أظن ما يوي هيسا أنا كاجا قام بدن كدبنا ويسقطني أبو شيء وكوري كوردادي ويجدين تين ما هاجي لجود دوي هادو سنكسرنا الحالة خطر بيجلسه كدبنا أباي سوق هذا ويقصوا عليه دكتور مركز اللي يقصوا عليه دكتورkii wuxuu igu muday irbad markii igu jirtay la 10 ilbiriqsi ayaan kooma galay waxaan kooma ku jiray la 8 habeen iyo 7 maalmood meelahaasi markaan ka soo baxana sidaan ku soo kacay dhakhaatiir fara badan baa leegeeyay oo dalka dibadiisa iyo gudihiisa oo yadiis kamid tahay intuu wana waxay yiraahdeen xididada ariga soo qaaday baa dhintay waxna laga ma qaban karayo marka halka la marayo waxay imanaysaa su'aal sidee lagu ogaaday markii ugu horeysay qaabka lagu ogaaday waxay ahayd markaan yaraa ilaa hadda dawadaan necbaa oo aanan isticmaali jirin oo marka waxa dhacday dawadii baa la soo qaaday marka hore waan arki jiray waan dirbaaxi jiray laakiin markii dambe ilaa inta afkayga soo gaadhay aan dareemay maan dirbaaxin markii afkayga soo gaadhay aan dareemay maan dirbaaxay marka hore hooyaa ka shakiday markii dambena isku dayo fara badan la sameeyay la ogaaday in arageygii aanu sax ahayn kadibna dhakhaatiirta la geeyay intuba waxay yiraahdeen waxba laga ma qaban karayo marka Yunus inkastoo ay qadar ilaahay ahayd haddana ma la oran karaa ama ma loo sameyn karaa dhakhtarkaasi irbada kugu muday inay wax yeeleen neerfaha amba xididada aragga sida dhakhaatiirtu sheegeenba waxay yiraahdeen xididadani odayaal irbadani odayaal hore ayay indhatirtay oo waa irbad inta badan aan loo isticmaalin dadka oo aad u digri weyn waqtigan jiray oo 9 bilood ahaa iyo daadida iyo jirkayga difaaciisa aan islahayn irbada lagu muday qudheeda iga digir weynid ayaa keentay inaan xididada aragga soo qaadiyo dhintaan marka iyada qudheeda markay qadarkii ilaahay laga imaado sabab bay ahayd aragayga aan ku waayo balse haddana may noqonin midaan isku dhigto ama dhayeelsado nolosheedii laakiin alxamdulilah maanta meel fiican baa ka maraya marka Yunus maadaama adiga oo yar oo 9 bilood jira irbada noocaas ee dhakhtarka noocaas uu isticmaalay ay u sababtay in aragaagii aad weydo waxaad la oran karaa marka waad la kortay laxaadka aragga ka maqan qaab nooceeya amba si nooceeya bay noloshaadu guud ahaan ahayd run ahaantii noloshaydu waxay ahayd oo la mid ahayd nolosha caruurta caadiga ah ee ku dhashay araggooga oo dhammaystiran yaraantaydina in fara badan kullin qofka waxa saameyn ku yeeshay deegaanka ku nool yahay ayaa saameeya marka yaraantaydii waxbarashadeedii intaanan bilaabin iyo intii aan ku jirayba waxaan ahaa qof bulshada ku dhex jira oo aan marnaba istakoorin oo aan iska dhigin qof kaliya ama aan iska soo qaadin in ay wax ka maqan yihiin midda kale waxa kale oo oran karaa oo iga caawiso noloshayda inaan isbedel ku sameeyo markaan yaraa waxaan ahaa qof aad u qalqaaliya oo dagaal badan oo rabshad badan inta badan marka ciyalka yaryar ee aan wax wada dhiganayno oo nusliin jirnay inta badan kadibna waxay suuroobi jirtay marka inaan ciyalku badana igu soo dhiiranin oo aan ama igu dacaydin ama igu caayin aragtideeda aan jirin taasina qayb bay ka ahayd noloshayda oo maareynta noloshayda ay qayb ka ahayd waxaan oran karaa waxaan nasiib u yeeshay haddii aan noqon lahaa qof aamusan ama aan dhexgelin bulshada kale dhibaato fara badan baa iga iman lahayd laakiin taasina qayb bay ka noqotay inay nolosheedu maanta halkaa soo gaadho nolosheeduna qaab noocaas ay ahayd markaan yaraa ilaa hadda